marka xagga nabadgelyada waxyaabaha maanta deegaankeenu waa deegaanka ugu nabadgelyaysan ma noqon kara. waxaa la aasaasay 1999 taariikhda Itoobiya dabayaaqadeedii oo ahayd xilli mataqaana ay yimaadeen xukunkan ay majaraha u qabteen dad dhalinyaro ah oo firfircoon isla markaana ay ka go'an tahay waxqabadka ummadda loo qabanayo iyo muwaadinimadka in la asaaso ciidanka booliska gaarka ah ee loo yaqaano liga booliska. isla markaana deegaankeenu yeeshay ciidan khaas oo la qaab-dhismeed ciidan oo dhammaystiran oo si dhab ah u xaqiijiyay sugidda xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo naftooda u huray dhiigoodana u daashay soona hooyay guulo lagu deersan karo in ay u batiraado kuma masooto waxaan la dagaalanaa ciidan ama Tigreed waddanka ka xoreeyna ama mataqaanaa ya xaraan ka xoreeyna waxaad ogaataan afartii sano ugu dambeysay hal nin oo axmaar ah ama Tigreed ama Oromo ah ama Dabuub ah ama mataqaanaa Cafar inuu dhiig una deegaan ku daadan waxa isdilayay ay yihiin ama mataqaanaa waxa dagaalku ka socda ay yihiin laba wiil oo walaalo ah taasna ay ahayn mid lagu sii socon karo. waxaa la xoojiyay lana dardargeliyay dhisitaanka ciidan shacab ama maleeshiyooyin degmo kasta ah oo leh qaab dhismeed ciidan oo dhammaystiran. waxaa markii ugu horeysay taariikhda deegaankeena nabadiidku uu dhadhamiyay sareynta sharciga oo ah markii ugu horeysay taariikhda ee la xukumay qof nabadiid ah loona xukumay hagardaamooyinkii uu shacabka ku hayay u geystay isla markaana nabadiidku uu si dhab ah u dhadhamiyay sareynta sharciga. waxaa markii ugu horeysay taariikhda deegaanka laga baaraan degay in lana dejiyay hirgelinta qorshaha iyo istiraatiijiyadda nabadgelyo oo lagu burburinayo laguna cirib tirayo cadowga deegaanka dalkeena meel kasta uu joogaba gaar ahaan nabadiidka ka dhaqdhaqaaqi jiray deegaankeena isla markaana dhidibada loo taagay qaab dhismeed nidaam sirdoon nidaam wada shaqeyneed oo si cad u qeexaya doorka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya doorka dowladda federaalka iyo doorka caalamka ee ku wajahan ka hortagida iyo burburinta cadawgeena kuwaas oo laga gaaray guulo aad u waaweyn oo la taaban karo dhinac kastaba ahaatee. waxaad ogtihiin in ururka UWSLF oo nabadda si buuxda u qaatay isla markaana uu maanta ku hawlan yahay horumarka iyo nabadgelyada deegaanka kaasoo mataqaana waxqabadkiisa ay ka mid yihiin in uu dhiso iskuulo ceelalo uu qodo isla markaana wax soo saarka ay soo saaraan uu maanta meel kasta gaaray deegaankeena. waxaa la abuuray lana xoojiyay nidaam lagu xaqiijinayo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo deegaankeena gaar ahaan sugidda amniga khubarada iyo shaqaalaha fulinaya qalabyada lagu fulinayo mashaariicda. waxaana tusaale fiican loo soo qaadan karaa hirgelinta jidka laamiga ah ee isku xidha dhagax buur ilaa Qabri Dahar goday ilaa Shilaabo oo habeen iyo maalinba ciidamadu heegan ugu jireen ilaalinta jidkaas. waxaase la yaab noqotay in cidda loo sameynayo ee ka faa'iideysanaysa jidkaas laamiga ay tahay shacabka isla markaana cidda laga ilaalinaya ay tahay nabadiid sheeganaya inuu xoreynayo deegaankaas ama uu ka soo jeedo dalkaas. يعني wadada la sameeyo ama bridge la sameeyo ee magaalada burqad ku yaala waxa laga ilaalinayaa nin burqad ay gaarkeeda ku dhashay ninka sameeynaya yuhuudi baa doonaha ahaa ninka laga ilaalinayo ee ninka ciidankii mataqaana ka ilaalinayo waa nin sheeganaya inuu deegaanka soo dhashay wadada macnaha laamida la sameeyo taasina macnaha la yaab ayaa la yaab leh. waxa markii horeysay taariikhda deegaanka ajenda ahaan loo qaatay daryeelka iyo horumarinta carruurta aqoonta ah ee waalidkood uu nabadiidku laayay isla markaana deegaanka laga asaasay lagana hirgeliyay dugsiyada hooyga carruurta aqoonta ah ee nabadiidku uu xasuuqay waalidkood. waxaad ogtihiin inay nabadiidku oran jireen waxaan la dagaalameynaa axmaaro ama dad kale laakiin dad ay la dagaalamayeen si dhaban ay la dagaalamayeen wuxuu ahaa dadka ka soo jeeda deegaankaas. waxay laayeen hooyooyin carruurtooda dhex fadhiya waxay laayeen aabooyin ugaasi laayeen. marka waxaa qasab dowladda deegaanka Soomaalida ee hadda jirta ay ku noqotay inay ururso carruurtaas aabahood ay gardarrada lagu dilay ubana ku dishay taasoo u sameynay dugsiga hooyga aqoonta ee Jigjiga iyo dugsiga hooyga aqoonta ee
fiiq ee gobolka noqo waxaa lagu guulaystay in la tirtiro aragtidii unugyadii taageeridii iyo cududii nabadiidka obo taasoo keentay in gebi ahaanba la gaadhsiiyo obo heer ayna wax qorshe ah fulin karin balse ay dhadhamisay ay dhuumaanaysi u gasho iyada oo 5 ama 2 ah haddii laydinku yidhahdo halkan laisku beerlaxaysto waxaa noo jooga ciidan ma jiro taasana idin xaqiijinaya baabuurka ka soo baxa goday wuxuu tegayaa jigjiga ka jigjiga ka soo baxana goday buu tegayaa isagoo ciidan la socon kaambay haddii laydin kaambay ku soo ciidankuna macna dadku socdaana kaambay laguma socdo taayna ogaataan baa loo baahan yahay guulaystay in la fashiliyo qorshihii burburka ku salaysnaa ee shacbiya dowladda Eritrea ama shacbiya ay ka dabacsanay deegaankeena kadib markii dhalinta maskaxda ay ka soo qoladay dib mabdii shacbiga macnaha mabdii inta dib loo habeeyay isla markaana maskaxda wixii ka jiray laga daadiyay ay iyadii dib mataqaana uga dagaalantay waxaad ogtihiin ciidan ay Eritrea soo tababartay in laga soo geliyay badda Somaliland isla markaana mataqaana la qabtay maantana inta dib dajin loo sameeyay ay noqdeen kuwa dalkooda iyo dadkooda daafacaya hubkii ay Eritrea ka soo qaateen inta darajo iyo lacag loogu daray ay dadkooda ku daafacayaan xuduudda deegaankooda ku adkaysteen obo inaad macnaha garan weydaan laga yaabo waarintii obo inaan sidoo kale taqaano man moodayay waxaad maqashaan inay waxaan nahay jabada wadaniga xoreynta ogaadeen laakiin waxa xaqiiqo inay yihiin ururka bahdilka iyo baabiinta ogaadeenka sababta ay yihiin waxa weeye dad kale oo dili karaan ma jirto qabiil kale oo taaban karaan ma jirto degmo kale oo geli karaan ma jirto waxay leen karaan kufsan karaan dhici karaan ambalaas ka gubi karaan waa ogaadeen taayna ogaataan baa loo baahan yahay ogaadeen oo dhan laftiisa ma aha waxa weeyaan gobolka afdheer oo kale ma geli karaan gobolka Shabeellana meelo badan bay geli karin waxaan ii sheegayaa degmada Xarshin ma tagi karaan araarso oo ugu xigta deegaan ahaan iyo dhalasho ahaanba waxba kama qaban karaan taayna ogaataan baa loo baahan yahay ururka macnihiisu taas weeyaan obo ma ay tamayno ee waa ururka macnaha ay sheeganayaan iminka urur xitaa uu dhaafay waa kooxda obo koox weeyaan waxaa lagu guulaystay in la sugo amniga xuduudaha isla markaana gacanta lagu dhigo cid kasta oo isku dayda inay sharci darro kaga soo gasho deegaanka waxaana tusaale ahaan oo ah ama tusaale ahaan loo soo qaadan karaa wariyaashii reer Suudaan ee rabay magac bixinta dalka iyo deegaanka waxaa idin xaqiijinayaa inay maanta ciidanka boolisku ay ku filaadeen isla markaana hantiyeen xuduudda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ama xuduudda Itoobiya la leedahay Soomaaliya oo ayna shimbir ka soo geli karin iyagoo soo fasaxa mooyaan waxaa boqolkiiba la soo afjaray falalkii argagixisnimo ee obo ay ka samayn jirtay magaalooyinka deegaanka dhexdooda sidadka dhaadheer taasoo keentay in markii ugu horeysay mashaariicda horumarineed laga fuliyo degmooyinka aan hadda ka hor xataa la tagi jirin tusaale ahaan waxaa loo soo qaadan karaa gobolka Nogob kale waxaa soo dhiiraday ama la soo dhiiratay qurba joogtii deegaanka u dhalatay kuwaasoo maalgashaday kana qayb qaatay horumarka iyo nabadgelyada deegaanka haddaad jigjiga tagtaan haddaad qabridaha tagtaan ama dhagax buur ama goday ama hargeyle ama doolo oo mataqaanaa wardheer ama Nogob waxaad arkaysaan ninka ka yimid 5 qaaradood iyo adduunka mataqaanaa 4 kale qaaradood adduunka ka yimid mataqaanaa ayaa isugu jooga kuwaasoo mataqaanaa maalgelin ka wada deegaankooda waxaa dhinaca kale la asaasay hay'adda xuquuqda aadamaha ayaa deegaanka laga asaasay qaab dhismeedkii nabadgelyada macnaha waxaa jira maanta ciidan fara badan oo ka howlgala deegaanka uu deegaankaasi leeyahay haddaan xagga horumarka u gaadho nabadgelyada maanta waxa weeyaan horumarka maanta deegaankeena ka jira ee daawanaysaan waxaa keentay nabadgelyada deegaanka dhalatay weeyaan kuwaas oo keeneen ciidanka booliska gaarka ah geesiyada u guntaday ilaalinta dalkooda iyo deegaankoodaba
isla markaana ku mashquulsan naftoodana u horaya in ay horumar gaadhsiiyaan ummadooda oo ay magacoodana kor u qaadaan manafacad ummaddaas ay ku noolatana gaadhsiiyaan waxaanad ka aragteen TV-ga ESTV iyo TV-yada kaleba in ay nabadgelyadii meel iska saareen isla markaana maanta ku mashquulsan yihiin inay talaalaan xoolaha geela iyo ariga iyo looda dadka ay iyagu gaadhsiiyaan daawooyinka waxaad ogtihiin horumar kasta ama ceel kasta oo la qodayo inuu ciidankaasi ku hawlan yahay inuu ka ilaaliyo ku leh aniga waddanka u dhashay laakiin xambaarsan fikir calooshoodu shaqaystinimo oo ay ku shubeen shirkadda mataqaanaa kuwa ugu waaweyn iyo shacbiya